Assalaamu calaykum. Agnostic view aragtida shakiga waxaa jira adduunkan dad aan meelna ku salaysnayn dhanka macbadnimada maadaama bani'aadamkan ku nool dunidu ay u qaybsamaan kuwa aaminsan in ilaah uu jiro iyo kuwa aan aaminsanayn in ilaah uusan jirin. Muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa aragtida agnosticism-ka loo yaqaano oo ah midda u dhaxaysa labada qaybood oo ay dadku kala raaceen oo ah in ilaah uu jiro iyo in ilaah uusan jirin. Inta aan bilaabin muuqaalkan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku xirnow oo taabo subscribe si aad uga faa'iidaysato barnaamijyada aynu soo gelino kanaalka. Mahadsanid. Haddii lafdi ahaan u qeexno agnosticism-ku waxa uu asal ahaan ka imaaday ereyga agnos oo ah erey Greek ah kaasoo macnihiisu uu yahay unknowable, wax aan la ogeyn, yacni wax aan la xaqiijin karin. Haddaan si kale u qeexno waa in qofku aanan sheegi karin in uu ilaah jiro iyo in kale. Agnosticism-ku waa caqiidada ama astaamaha cilmu nafsiga ah marka loo eego jiritaanka wax kastoo ka baxsan iyo wixii ka dambeeya ififaale ama aqoon u haysashada ilaahnimada, mana ahan wax diin ah. Agnosticism-ku waa udub dhexaadka sayniska, ha ahaado mid casri ah ama mid duug ah. Si fudud macnaheedu waxay tahay in qofku uusan rumaysan karin ama uusan raaci karin wax aysan lahayn sabab cilmiyeysan. Waxyaabaha cilmiga agnosticisku sida weyn uga soo horjeedo waxaa ka mid ah in qofku rumaysto ama diido jiritaanka ilaah iyadoo aan helin caddeymo ama daliilo macquul ah oo lagu qanci karo. Cilmigan agnostikiska ah ma ahan caqiido balse waa hannaan. Mabda ay ku fadhidana waa adeegsiga adag ee mabda hal mar la raaco. Saynisyahaniinta qaar ayaa waxa cilmigan agnostikisku ku tilmaameen mala-awaal aan lahayn taageero, ujeedo, caddayn, sheegasho mabda'adeed oo sugan, taasoo ka dhigan in dadku aanay sheegi karin in ilaah uu jiro iyo in kale. Ninkan aad u jeedaan waxa uu ka mid yahay dadka aaminsan in wax ilaah uusan jirin. Aan aragno waxa uu leeyahay. And it's all about how you want to define agnostic. And if you're really philosophical, we can get into like, oh, there's agnostic atheists and Gnostic. And okay, I don't care about any of that. So let's just stick with a very basic definition of agnostic. As I know it, agnostic means, I don't feel like I have enough information to say whether God exists or God doesn't exist. So I'm just not going to take a position on it. I think it's unknowable. That's agnostic. To me, that's a more respectable position to say, I'm just going to assume there's nothing there. Take a side. If you're agnostic, it pretty much means you understand there's no proof for God's existence. So stop calling yourself agnostic and just move toward the atheist direction. Guud ahaan dadka agnostikiska ah ee ku nool dunidu waxay bulshada caalamku ka yihiin 7%. Waxaa mahad iska leh Allaahii naga dhigay muslimiin naguna hogaamiyey diinta Islaamka. Qur'aankeenuna ma sheegayo ilaah lagu muransan yahay oo la leeyahay ma jiro ama waa uu jira. Qur'aanku waxa uu si cad u qeexayaa ilaah. Suuradda Qur'aanka ku jirta ee ilaah sida weyn u qeexda waa suuratu al-Ikhlaas. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي وهل وانا سمد wax ma dhalin lamana dhalin wax isaga la mid ahna ma lahan. Haddii aan ku noqdo kalimadda Allahu Samad, culimada muslimiinta ah ee mufassiriinta kalimadani waxa ay ku fasirayaan ilaahay waa necessary being. Necessary being macnaheedu waxay tahay mabaxdaha loo baahan yahay. Dabcan waa ilaahay qofkaas. Necessary being waa erey terminology ah oo Islaamku si weyn u isticmaalo, gaar ahaan marka uu la doodayo kuwa mulxidiinta ah. Waxaana loo adeegsadaa mid ka mid ah sifaadka Alle sida aan daqiiqad ka hor ku soo sheegnay. Waxaanu niri Allahu Samad, ilaahay waa necessary being. Ilaahay waa mabaxdaha loo baahan yahay. Dabcan ilaahay waxa u baahan bani'aadamka, xayawaanka, dhirta iyo wax walba oo dunida yaala. Sidaas daraaddeed baa waxaa loo yiri ilaahay waa necessary being. Sidoo kale Qur'aanku wuxuu inoo sheegayaa in diimaha ambiyadii ka horeeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam aan la dhihi karin ma jiraan, balse ay ahaayeen kuwa laga soo tagay oo dhacay, aakhirana aan laga aqbalaynin kuwa hadda aaminsan diimahaas. Ilaahay isagoo arintaas ka hadlaya ayaa waxa uu Qur'aankiisa ku yiri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين qofkii soo raaca wax diina oon islaam ahayn wax laga aqbalaya ma jiro maalinta aakhirana waxa uu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray oo noqday hal bacaad lagu lisay mar kale waxaan u mahadcelinaynaa Allah naga dhigay muslimiin u hoggaansan diinta islaamka haddaad tahay muslim leh alxamdulillaah guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa muuqaalkeena maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh